الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta. maanta waxaan noo wadaa wax yar oo iska fudud oo simple ah oo qof kasta gurigiisa yaala aadna ku qurxinaya wajigaaga markaas wuxuu ka dhigayaa wax ma sha Allah oo qurux badan. diyaana binaadambi baa la yiraahdaa. wajiga wuxuu siinayaa baraytin, wuxuu siinayaa cadayn, buu siinayaa anti age hadduu wajigaaga ka jiro waa ka saarayaa. fitamiinaad buu wajiga siinayaa. waxaana ka samaynaynaa wax yar oo fudud, laba shay oo guri kasta yaala oo laga helayo guri kasta aan ka samaynaynaa. labadaa shay waa ukuntaan, xabada baadka oo inta taalo ukuntaan iyo kafeegan aan ka samaynaynaa. ukunta waxaan isticmaalaynaa mar cadaankeeda, marna waxaan isticmaalaynaa yelowgeeda. labadaba waa idin tusayaa. yelowga markaan isticmaalayo waxaan ku darayo iyo markii aan isticmaalayo white-ka ukunta meesheeda white-ka wixii aan ku darayo intaba waa idin tusayaa. fiidiyowga dhamaystirta fiirsada sidii faa'iidada aa u heshid. waa halkaa xabo ukunta aa uga faa'iidaysatid. intii kareen qof isku qaqaso aad marin lahayd wajigaaga, ankee haddaa marsatid ukuntaan waxay ku siinaysaa fitamiinaad. wajiga markasta kareen kaliya laguma wadi karo. waa in looga faa'iideeyaa waxa jikadaada yaala. labadan shay jiko kasta yaalaan. marka intaana rabaa ukunta qaybteeda cad baa marka hore ku bilaabaya. waa in tusayaa sidaa u marsanayo. ukuntii waa tanaa, tii yelowgaheed waa tanaa intaa ku shubay. tii oo cadaankaheedna waa saana usoo xumbaysiiyey ayadaan hadda hor marsanayaa. marka waa in tusayaa markaa marsado iyo waxyaalaha aan ku marsanayo. waa aada u xumbaysiiyey, saasaa la rabaa inay u xumbayso. tana wixii aan ku daraayo dibaa idinka tusayaa. tiishkaanaan saarayaa, saasaan ugu soo dhammaynayaa. ukuntii caddeed wejigaan saartay. mar dhow ma hadli karo, wejiga dhan waa ku toomayaa. gacantaa idinku tusayaa. waa kasa saas ma tahay. markaan fujinayana waa idin tusayaa. hal xabo ukuna gurigaaga taalo laba nooc u samayso. maalinkaas waxaan ku iri wajigaaga waxaa laleeyahay maxaa soo maris. markaasaa gacantaa idinku tusayaa. tiishkaan saa u saaray gacantaydoo dhan waa ku dhameeyey. hadda intaan ka saarayaa. korkaan ka marinayaa ukuntii. wejigana saasaan ka dhigay. tii waatanaa gacantaan saa u mariyey. tiishkaan soo saaray. tiishkaanaan soo jarjartay waa saaray. ukuntii caddeed wejigana waa marsaday. waa kasaa weelka waa ka dhameeyey. way qalalaysaa, waa ka fujinaysaa. dan hadda ma hadli karo, wejiga waa isku kay dhegdhegayaa. dan ka bacdi waxaan marsanaynaa midii yelowgaheed. ayadana waa intusayaa say kusoo bixi doonta gacantaas. wejigaaga ukunta qaybteeda cad waxay baabi'isaa ejka. haddii wejigaaga har madow leeyahay, haddii uu barbaro leeyahay, waxa dhan wejiga way ka saaraysaa. wejiga quruxu noqonaya, ejka way ka saaraysaa. hadda wejiga ii marsan tahay. gacantana waa idinku tusaayay. saasoo kalean wejiga u mariyey, tiishka u saaray. marka waa isku soo noqonaynaa markay qalasho. la socod wanaagsan. hadda wuu qalalay wejigii. waa kana wejigu ii saaran yahay, ma hadli karo. aada u qalalay. markii wejiga laga fujinayo maca xaada yaryar wuu kaa jarayaa. waxaan ku yiri wejiga madmadowga haraarafka ku jiroo dhan maasha Allah ka dhigaya. markii wejiga laga fiiqo quruxu noqonaya. waa kana hadda wejigaan ka fiiqayaa. gacantii sidoo kale waa kasaa gacanta saasaan uga fiiqay. wejigana tabtaasaan uga fiiqay. gacantaan ka fiiqay. gacmihii qurux waxaan ku yiri xoogaa ugu fiiqaysaa. waxaan ku yiri gacanta xanuunka marka la fiiqaayo waa yaabaysaa sida uu xanuun badan yahay. wejiga weliba markii laga fiiqayo aada u xanuun badan yahay. hadda maasha Allah ila soo tijaabi. aada iyo aada uga helay.
ukuntii caddeed markaan iska soo dhaqay inta cabitaana ii yaalaa ukunta meesheedii jaallaha aheyd waa tanaa kafeeyaan ku daray iyo fitamiin e na waa ku daray intaa isku soo marso waxaan ku yidhi wejiga ukunta cad markii laga dhaqo quruxda maasha allah ukunta cad yani wejiga markii tiishka lagula dhajiyo waxay ka saaraysaa haraarufka wejiga madowga galay haddii nabra uu lahaa hadduu godgod lahaa haddii da uu lahaa waxaasoo dhan ka saaraya kanina wuxuu gelinayaa kaas wuu qalajiyey kan wuu qoynayaa wejiga dhan nafaquu siinayaa waa kafeegii iyo ukunta qaybteedii yalowgaheed cabitaankaaga maasha allah cabitaankan waa beetroot iyo apple iyo orange juice liinta oranjiga intaa yartaa wejigaaga mustresaray siinaysaa markaa marsatid saasaa u marsanaysaa adiga waxaa ku haynaysaa ilaa 40 minute 30 minute ku haynaysaa kabacdi maasha allah wuxuu noqonayaa wejigaagu qurux awal ukuntii horeete waxay ka samaysaa wixii ku jiro madmadoobay kaa saartay tanna fitamiinay kuu siinaysaa labaduba ejka way la dagaalaan ukunta weliba qofkii hadda soomaaliya joogo ukunteeni fresh kaa haystaa waa si cajiiba ukuntaani da-day la dagaalantaa maasha allah da-da qofka wejigiisa kusoo degdegtay ama qaar waxaa keena daawooyinkan kareemadan la marsado kareemadan marka hore way kusoo dhaweynayaan dan ka bacdi bay gadaal kaa jarayaan oo waxay ku gelinayaan dhibaatooyin madmadoow da soo degdegtay marka kareenki waa bada marsataa laakiin waxaa isku daydaa inaa wax nafaqa leh oo gurigaaga yaalla xabad ukunana allaha ka dhigay inaad booskii gelisid si ay kuugu shaqeeyo oo wejigii uu qurux u noqdo cabitaankaa rabtid haddaa rabtid beetroot hayso isticmaal gudahana haddii aa cabitaan isticmaashid maar gudaha aad jirkaaga fitamiin gelisid korkaagana wuu ka soo baxaya adigoo korkii qurxinaya gudihiina wax fitamiina cunaya korkaaga laga dheehanaya hadday da jirto da-du kaa saaraya haddii qurux saa-idu ku siinaya kooljiin oo kaleete hadda beetrootka oo kaleete waxaa laga helaa kooljiinkana waa wax markii qofku 20 sano gaaro jirkiisa maalin maanta ka dambeysa ka dhamaado marka Soomaali hadaan horta kooljiin maba isticmaalno mana naqaano laakiin qudaartu ku jira wuxuu ku jira hilbaha sida lafaha lo'da lafaha oo wuxuu ku jira malayga oo kaleete marka wuxuu ku jira doorada ama saa u taqaanid digaaga marka intaan isticmaala dhamaantiin waa idin salaamaya intaan qof kasta ha soo tijaabiyo dhamaantiin waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu